دمان مرت شرفتك لدول طفل با مقام كيسا ينقو سلام يا سيجارة وحن سلام يا أرضي دمان تلو loo hambalyeeynaayo oo mutay in loo hambalyeeyo dadaalkii juhdiga ay soo sameeyeen sidoo kalena maamulkii iyo macallimiintii iyo waalidiintii ku garab taagnaa oo intaanoo juhdi bixiyo iyo qabanqaabiyaashii dhammaan ayaguna waa salaamaya waxaan leeyahay hambalyo labaad annagoo ah Premier Bank waxaa farxad inoo ah inaan maanta idin kala soo qayb galno xafladan qalin jabinta dadka ka qalin jabiyay jaamacadan Capital waxayba kamid yihiinba dad kamida maamulka bangiga Premier oo ragga macnaha muxuu ahaa manageriska ay ka tirsan yihiin taas waxay macno u tahay yani dadka halkan ka baxay waa dad aqoontooda aqoon la huba ah oo maanta muxuu ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada kaalin ka qaadanaya oo muxuu ahaa meel fiican uga jira maanta waxaan isleeyahay waa maalintii ixtifaalka iyo hambalyada waa maalin muxuu ahaa aad iyo aad loo faraxsan yahay la isu dardaarmaayo marka hadda naftigeedana ragga macnaha meesha ka shaqeeya IBS waan ku laabanaya afwan Premier Bank waan ku laabanaya iyo Axmed Nuur hayasha waxaan jeclahay oo nagu soo biiraysa oo aan jeclaystay inaan idin la wadaago gudoomiyaha ururweynaha haweenka gobolka Banaadir suldaamada yada Jawaahir Baarqab ayaa nagu soo biirayda oo aan leeyahay soo dhawow suldaamadii gabdhaha gobolka Banaadir gudoomiyihii ururweynaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab oo qayba ka noqonayda qaybaha ugu dambeeya ee sagootinta dufcadda sagaalaad soo dhawow maama Jawaahir waxaan leenahay soo dhawow sidoo kale maanta waa maalin hambalyo waa maalin farxadeed waa maalin aan leenahay muxuu ahaa aan idin la qaybsanayna farxadda aad ku jirtaan talooyin badan ayaa khubaradu halkan idinka siiyeen oo kala duwana waxaa laga yaabaa in talooyinkaas siyaabo kala duwan loo fahmo haddaan muxuu ahaa qayb ahaan isku aadiyo talada ugu muhiimsan waxaa waaye taladii uu dhiibay Professor Farax Qare ee ahayd inaad suuqa aad ka war doontaan oo aad samaysaan businessyo iyo mashaariic hal abuur ah oo naftiinana aad ku anfacdaan bulshadiinana aad ku anfacdaan maanta qofkii mashruuc yar sameeyay sida barafku sheegay 20 qof 25 qof ayay hal doon wax u taraysaa sidaas si lamida mashruuc yar haddaad samayso oo aad anfacdo 2 qof iyo 3 qof iyo 4 qof noloshaadana aad anfacdo taasaa waxay tahay fursadda ugu weyn waxaa idin dhihi lahaa waqtiga hadda haysataa maantaad qalin jabisay yacni talo waxaan ku siin lahaa oo walaalnimo ha ku kadsoomin shaqooyinka oo aad raadinaysa iyo CV meel u diraa iyo halkaanaan yeelay waxaas dhan iska dhab adigoo shaqooyinkaaga iska raadsanaya 10% wax heli karta adinkuna aad u badantiin dadka qalin jabiya aad u badan yihiin waxaana la rabaa in suuqi la tago waxaan ku dhihi lahaa qof walba saacadda hadda uu joogo wuxuu waqti gelinayo ayuu wuxuu arkaa inay muhiim yihiin oo waxa adduunka yaallo dhan ay kaaga muhiimsan yihiin hadday saas tahay qof walba meeshuu waqti geliyo ayuu miraheeda gurtaa yacni hadduu qofku xirow uu noqdo masaajidka galo 20 sano kadib wuxuu soo baxayaa isagoo xirow ah oo sheekh weyn ah oo caalim ah ayuu masaajidka soo baxayaa
hadduu askari galana 20 sano kadib wuxuu ku dhamaanayaa xidigo iyo generaal iyo abaalmarino iyo adduun ku dhamaanayaa haddii uu jaamacad galana professor iyo muxuu ahaa cilmi baaris sare oo initiative la imaanaya hal abuur oo hal abuurkaasna mustaqbalka loo rogi karo aragti business ayuu isaguna la imaan karaa waxaan rabaa wax aadan CV uga baahnayn cid kale uga baahnayn haddaad meeshaan ka baxdo maanta raadso xataa inaad dukaan Allah ka dhigee inaad samaysato oo aad dhex fariisato oo muxuu ahaa meeshii aad ka soo saaran lahayd noloshaada aad xoogga saarto inaad shaqayso ceeb maaha yacni waxaa jira fikir oo si qaldan loo aaminsan yahay anoo baajular ka baxay miyaa dukaan furanaya يعني يس والدك أنا عاوزال ربا والدك وحو إنتان كوجسو جرسي يعني سجاشم بقول كي بجناعسي يو محوها شقوين يريرو دبدها لقى شقي يو بيل يو وحل يسوع صادرة يو قف جامعة سكاجا بحيو أيالا صاها معنيه هذا مركب محاول طبعاً باهلي كرتا يعني مالها محوها أو هدي أهان لهيد أما الدولة أما هدي أهان لهيد أو إيجونا مركاسي ما ده كر معناها وأن هبل الريحة يحل بانا وذي يوسنا قانا مقالد وسكفان سنة سمرك عن واحد سلفها إنه أنا واحد عنده لا خياري دكان فرطة سوق جلا جناح سجلا شقيستا وحن هبا نكى ما أنت بريش قبل اللعبة 20 سنة كبعدي إنه اللينكية السوق إسقى واحد لجوي دينايو أمانة إلى إسقى واحد لجوي دينايو وحكست له بهاي إسقى الله ده وفريسانايو هذا أهان له الدل يدبت جناح سجى سيد اللي سوق حرو بنجية سيد الله استعماله مشاريع سيد الله رنجرايو آخر كان حاج هبل جناح سيد هبل وقصاد معنا يا ضدك جناح ستة أنتوا ده بدن ضد أقون بدن لما taas ogaada adaa aqoontaada iyo suuqa isku darto wax badan meesha ka soo bixi karo dad badan iga dambeeya taladaas ay idin siin lahaa aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayr Premier Ban Al-Ustad Ahmed Noor